ودوينتي هي وحال سو غاري iyo xilli dambe oo salaada laga soo baxay adba arinku aatan oo xoogaysanaya halkan aad dadka ka arkay madaxweynaha ayaa iminka soo degay dabcan sida wararkan ku helayno oo aan ku soo wajahan toosa ayaa ku jira agaasimaha Axmed Cabdalla Tiyaana halkan dad badan kala socdaan mudan agaasime dhowr boqol oo qof halkan kala socda airportka ma aadin laakiin farxadda ayaan dadku ku soo dhaweynaynaa anaga halkan agaasimayna tii magaalada iyo waddanka halkee wax marayaan hadda hawaaye shacabka u jeedaan soo fadhiyaan ilaa sarkaalkan ku sugaynay gaadiidkii waa soo bilowday waxaan rabnaa inaan gudbino farxadda inuu ku khudbeeyaan rabnaa farxadda caanka ahayd baan joognaa afhayeenka dowladda Quraan Jecel حاجة أحمر يعني. وفي عنا الحمد لله. أيه. مدحوني فترة هالكا
meel dhow bay soo mareen soo dhawow madaxweyne soo dhawow Soomaaliyeed soo dhawow Puntland diyaargarowga laba xafladood baa saaran waxaan ku jirnaa xafladii 8 January iyo xafladda soo dhaweynta madaxweynaha federaalka iyo xafladda furitaanka ee laboorka caalamka ee Garowe saddexda xafladood ayaa insha Allah Puntland iyo dalka Soomaaliyeed meelay joogaan waxa la yiraahdaa iyo gobonnimo iyo amali طبعا waxaa gudbaya waa gaadiidkii nasaaka xilli hore ku bilowday garoonka مسؤولينta dhaashane halkan dad badan baa ka daawanaya oo gudaha dalka iyo dibadda jooga noo waran xagee wax maraya sida aad daawanaysan halkan waa barxadda Puntland caasimada Garowe shaqada shacab soo baxaya barxadda Garowe kuwaas soo dhaweynaya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya dadka barnaamijka ku heer shay ku afka waxaan sheegaynaa Puntland inay tahay meel lagu soo horiyo ama lagu soo horiyo dadka maanta ka baxday inay tahay meel nabadeed meel caafimaad qabta meel shacabkeedu ay shacab Soomaali sax oo soo duwan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya farmaajo iyo dawladdiisa iyo xukuumaddiisa iyo ra'iisul wasaare Khayre waxay noo saaran yihiin dhammaan Soomaalida gobolladeeda kala duwan hadday ahaan lahayd bay iyo dadka Hargeysa iyo weliba Soomaaliya taliya aad baa u mahadsan tahay dhaashane taliya fardafuul dhinaca ammaanku sugaya fardafuul dhinaca ammaanka dadka iyo sida wax u socdaan halkan waa taliya fardafuul ammaanka iyo sida wax u socdaan si fiican baa ammaanku kala socdaa xaalad oo kale way waa kala deganta aad baa u mahadsan yahay taliyo wax walba si loogu talagalay u socdaan dabcan abayeenka iyo dhaashane dabcan aad baan ugu mahad celinaynaa iyo mas'uuliyiinta kala duwan duqa hore degmada Garowe haatan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Puntland calaykum salaam agaasimaha noo warramo maanta iyo waxa socda waa soo dhaweynaa madaxweynaha federaalka mafruuda soo dhaweynaa magaalo soo dhaweynaydu magaalo nabadeed magaalo martisood magaalo dowladeed waa magaalada cid kasta lagu soo dhaweynaya dabcan oo wax qurux badan baa soconaya maxaa dadka halkan meelaha wafdiga waa soo dhow yahay hadda wafdiga soo dhow yahay halkan ugu been doonaa dadku mahad celin doonaa aeroboortka ku soo dhaweynaya dad badan baa ku soo dhaweeyay مسؤولينta aeroboortka taga kamid ahayd markaas sida aeroboortka jawgiisa sida ahaa lama malay aad iyo aad loo soo dhaweeyay meeliya kala soo tirada badnaaya sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo sportska aniga waa agaasimaha wasaaradda halkan waxaan u taaganahay waxaanu ka midnahay shacabka nabadda taagan sida aad aragtaa shacabka reer Puntland dowlad madaxweyne ilaa madaxweyne maartuman iyo agaasimayaashu waxay u siman yihiin nabadda waartay dadka aad daawanaysa dhammaan waxay ka kala yimaadeen gobollada dalka Soomaaliya ka yimaadeen ilaa iyo meesha la yidhaahdo Hargeysa ilaa iyo Kismaayo waa magaalo aan la kala haynin meel walba waa laga yimid sida aad daawanaysa horta waxaa soo haya madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ku wareegi doona waa soconaya dhinaca gaadiidku gaadiid fara badan ayaa haatan gudbay kuwa kale waa ay ku soo baqan yihiin hayaadan waxaan xabalyeynaya soo dhaweynaya madaxda u taagannahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaa waxaan aad u rajaynaya sida nabadgelyad u xasishay in la soo celin doono ciidamada xuquuqdoodii la waayey asalaamu calaykum aad baad u mahadsan tahay dabcan halkani waa barxadda magaalada Garowe hawlo fara badan ayaa soconaya oo soo dhaweynta dabcan ay ugu weyn yihiin oday baa igu maran
meel sare maraysa marka anaa ku soo wacayada gaadiidka xooggiisii baa hadda soo bilowday howladag baa socota si shaargareeya saaxiibo badan baa halkan iga weydiinaya dabcan gaari inuu lakada kaamara oo adigaan u baxno waa xogayaha dowladda hoose ee magaalada Garowe Maxamuud Cali Biray ma sha Allah ay maanta iyo jawiga magaalada Garowe xogaye magaalada jawiga waxaa ka jawaabaya dadka deegaanka iyo shacabka Puntland ay ay soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo magaalada iyo amniga iyo maamulka dalka ka jira amni iyo horumarka iyo nabadgelyada ka jira waxa ka saaraysa oo ka jawaabaya shacabka caasimada saad bal shacabka u diyaariseen abaabulka iyo waqtiga la galiyay arintaas waa sida ku bilaabatay shacabka mar walba waa iska wacyigelinayaan mar walba wuxuu u taageerayaa sababtareynta iyo taageerada shacabka iyo dowladda ay gacan uga qabanayaan ayna u arkaan wax walba la qabanayo talaabo kasta oo la qabanayo horumarkooda iyo horumarkooda marka waa dad ayagu iska bisin waxayna urkooda waxay kala soo baxeen dowladnimada iyo shacabka iyo horumarka aad baad u mahadsan tahay aad baan ku mahadcelinaynaa akhyaarta sharafta leh halkan nagala socda fariimaha quruxda badan soo qoraya aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa oo halkan nagala socda waa bartamaha barxadda magaalada Garowe oo soo dhaweyntii u ballaareed maanta dabcan ay ka socoto oo Garowe lagu qabto farmaajo iyo Garowe ma sha Allah anaguna waxaan mahadcelinaynaa hambalyo u diraynaa shacabka reer Puntland iyo sida ay uga jawaabayaan soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka iyo sida ay u muujinayaan amniga iyo horumarka ay ku haystaan dowladooda iyo systemka ka jira maamulkooda ay u muujinayaan iyo sida caalamka oo kale ay uga go'an tahay inay soo dhaweeyaan dowladnimada Soomaaliya iyo wixii mustaqbal aad baan ugu mahadcelinayaa shacabka iyaga waxaan leeyahay ilaahay ajarkeeda iyo abaalkeeda hayda siiyo waligeena waxaan kaga tagayaa idinku ogahay sida aan soo haystaan gacmaha inaad dowladdeena iyo maamulkeena iyo soo dhaweynta dowladda Soomaaliya aad gacanta aad baa mahadsan tahay Maxamuud Cali Biray iyo xogayaha dowladda hoose ee magaalada Garowe oo ka hadlayay soo dhaweynta iyo qaabka ay wax ku socdaan gaar ahaan magaalada Garowe مسؤولين كلا دوان وهالكن وزير كحيلك مالية بنتلان عبد السلام بشير عبد السلام وزير نور من حاكم مقدمات
tahay daashana waan isaragnay mar walba wuxuu heegeen diyaar u yahay inuu ka qayb qaato hay daashana mar raba diyaar una soo dhaweyntii qorada kulul oo saacada iminka baarasa baarigi labadii doornimo dhammaan casrada Puntland waxay soo saartay wadnaheedii iyo beerkeedii oolkeedii waa garadkeedii lama kala hooyay aabaga dhalinyaro Soomaalnimada dhabta halkalta waxay taala halkan oo hoy loo siman yahay la kala xigin meel dhaqankii cadaalad ka hirgaleen wadana ay shacabka dawladda fitay la joogto هذا كبر سفرين تاض سركال كتسن وزارة الشغل شغالة بقول لك صح waxaa soo socda dabcan gaadiidkii xooggiisii ugu badnaa baa hadda soo galay waxaa ugu soo horeeya waad u jeedaan baabuurta haatan xaggayga xaggan soo socda marka xooggiisii haduu soo bilowday oo soo qulqulaya dhinaca gaadiidka qasaska maraya baabuurtu waa isku qasan yihiin dabcan baabuurtaasi soo qulqulaysa maadaama aad u fara badan xilliga ay soo dhammaato ayaa madaxweynuhu oo halkan imaan doonaa dabcan oo farxadda magaalada Garowe uu ku degi doonaa sida xogta aan ku hayno halkaasuu kula hadli doonaa banaanka qof halkan ku sugan oo soo dhaweyntiisa heelanka ku jira نور شباب فرح مات وصور قضاها سوي شدان شغال هنا ساعة ما تقص وش الرجل هالمر ولا قاعد جامعه هالمر ولا قاعد صوت والله رجع قارو سيرة شيء كنا يار عول هل حق ولا هنا برا اسكو صاني تمام
soo dhaweynii hore ka waran والله si fiican loo soo dhaweeyay maxaa isleedahay maxaa ku qiimo leh si sharaf leh reer garow waa dad wanaagsan si fiican oo soo dhaweeyeen madaxdeena federaalka fuuda qayb ka taabanayna ya fuuda timid waa ka mid أنا وأنا كمل هاي لما يرد واحد صور وين هاي كمل هاي قمن قاعدة كمل هاي ما شاء الله مركب واقع هذا وهذا هول قرن هذا وهذا واقع ساس واي maqlaysaan fariinta la soo gudbinayo madaxweynaha inuu soo dhow yahay waa fariintii ugu horeysay oo halkan laga jeediyo maqlaysaan fariimaha dadka loo soo gudbinayo halkan ku sugan inay ammaan ka shaqeeyaan inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta madaxweynaha inuu soo dhow yahay oo waxyaabaha ugu muhiimsan halkan dadka looga sheegayo iyo inay safafka ay toosiyaan gaadiidka dhikirada loo yaqaan haatan gudbaya oo soo dhaweynta qaybka maanta gaadiidkuma kala harin noocu doonaba ha ahaadee barxadda garowe ayaa toos loogala socotaan bartan facebooka waxaanu jecel lahay inaanu idinla wadaagno waxyaabaha halkan ka soconaya si aad idinkuna indhihiina aad ugu aragtaan saaxiibada halkana ku jirana runtii aad baad u mahadsantahay waxaanu siinaynaa dadka say u arkaan waxa socdaan booliska ayaa haatan gudbaya marka dabcan tirada gaadiidku ay soo guraysaa gaadiidka xooggiisa waa u gudbay nambarka haray marka uu goordhow waxaa bilaaban doona baabuurtii sida gaarka ahayd ugu diyaarsanaa saaka oo xilli horeba iyagu baxay heesaha wadanigaaba halkan ka shidan dadku waxa ay ku leeyihiin waa wada farmaajaysan ah 8 Janawari ayay sidoo kale arrintani xuskeeda oo socday qabanqaabadiisa ayay ku beegantay iyo farmaajo dabcan sidaan nii sheegay baabuurtu saaka magaalada wax ku haray way yaraayeen baabuurtii waa ay sii xoogaysteen gaari weyn ayaa soo jira horta maxaanu bedelnaa saaxiibada la socdow maxaynu wax ka bedelnaa taladiina maxay tahay soo jeedinaysaan waan u jeedaa xoogaa khadkiin yara daciif yahay laakiin waa soo xoogaysan doonaa la soco bahdi miidiyaha ayaa iyaguna qaybka shaqada socota baabuurtu noocay tahay gaariga markaasi wacyigelinta dadweynaha ee wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa gudbaya kooxaha markaasi fanka ayaa saaran gaarigaasi oo soo dadkii badankoodu waa ay soo xiroodeen waxaa la sugayaa talaabada xigta waa tiradu والله صح والله والله أقدر أروح لعبت وأنا كل ما عم حتى توكا سايست الله يفيصلها يا الله يفيصلها عادي
هيا إلا دس قروا كلية ما تقوى شوقا نعم وأنا قاينا أمان كسوس كش قينيس أكثر في دي ده شوف كذا كله كلاوي ورنا قرآن رامي وكا بس على قالك بركة كوبا كاميرا بركة كوبا شو دقن كذا عادي baa gudbaysa bajaajta waxay ka mid tahay gaadiidka dheereeyo soo dhaweynta qaybta ka ahaa يور أقاسمها راديو قروي أنا وكيل ورادك BBC da هي كورن garoonkiina waa tagtay saaka wax walba sida loogu talagalay u socdaan koonfur galbeed baa gudbaysa calamadooda marka soo dhaweyntu way balaaran tahay maamulada qaar calamadoodii dadweynaha markaas matalaya way wataan koonfur galbeed waxaa gudbay gaadiid ay wataan dadweynaha koonfur galbeed UN-ka haata gudbaya waa gaadiidka ugu dambeeya ka mid yahay dabcan wax yar baa haray wax yar baa haray baabuurta madaxtooyada oo ilaa hadda ma aragno gaadiidka UN-ka maraya gaadiidku ay soo kala horeeyaan mar walbana baabuur hor la gudbaysa oo runtii aad wareegka tirsan telefishinka dowladda Puntland ka wada soo dhaweynta maanta dad la fageesa ka soo dhaweynta aad u balaaran tahay soo dhaweynta
la gudbinaya gaadiidkuna toos u gudba dadku waa ka degayaan gaadiidka marka ay halka yimaadaan safafka dhaadheer bay wax ka gelayaan ciidanka waxaa la rabaa inaysan dadka maanta qoraxda taagnaa inaysan waxba keenin tartiib ay uga dhaqmaan haddii la wada ogolaado dadweynaha waxaa laga rabaa inay iyaguna ay awaamirta qaataan si ma garanaysaa shaqadu inuu ku hagaagto shaqadu si fiican bayna ku socotaa ilaa iyo hadda waa la soo dhow yahay wax yar ayaa inoo dhiman dhamaystirkii ayaa inoo dhiman